munaasabadani oo ka qabsoontay hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid lagu daafurayay buug loogu magac daray Afdhaab oo uu qoray murti curiye Cismaan Cabdinuur Xaashi Khaliifka waxaana qabanqaabada munaasabadaasi iska kaashaday ururada akhriska iyo qoraalka ee hal qor iyo oday ka sheekay munaasabadaasi oo goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha xisbiga wicid injineer Faysal Cali Waraabe maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteeko xubno ka tirsan golaha wasiirada gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda qoraayo iyo dhalinyarada u tiro badan ayaa ugu horeyn waxa daafuray qoraaga buugan Cismaan Cabdinuur Xaashi iyo qoraa Cabdinaasir Axmed Ibraahim oo ku hadlayay afka xaruntooda ka sheekay barnaamijkan ay qabanqaabisay buugan 23 sano sidoo socdayna idinka sheekeeyo anigoo sida dhalinyarada iska guriga gaariga ku fikiro playboy ba ilaa xajkeeyay maalinta macna uu qofka carfan istaagay dabeetana xaqana la soo duway waxaan u bilaabay daraasado afar sagaashii daraasada bilaabay waa 8 daraasadood buugan Afdhaab horta magaca Afdhaab waxa bixiyaa dhaal garas maqalooshe marka 8 ka daraasadood mid kasta hal buug oo kala laga sidii kara taasi waa daraasad leeyahay tiraabteena oo aan 7 xaraf ku jirin waa 7 laba ba da ga la ma na ra 7daas mooye intii kale buuga ku soo ururina waana hal daraasad oo kamid ah 8 ka daraasadood ee buuga huruuda cadceeda ee Afdhaab ee afka dhaabayay waxaan u mahad celinayaa cid kastoo barnaamijkan wax ka qaadatay Cismaan Cabdinuur Xaashi qoraaga wuxuu kamid yahay dadka farakutiriska ah ee afka tacabka faraha badan geliyay Allah una xariisteeduna carabeed baa wuxuu yiri mar hadaanad geerida horteed geesiga aqoonsan goblan weeye Soomaaliya garashadaadani maanta ayaa loo baahan yahay inaan aqoonsano geesooda qoraayadii wasiiradii iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee madasha ka qayb galay ayaa iyaguna bogaadiyay qoraaga buugan iyadoona ay xusid mudan tahay inuu isla goobtaasi uu kaga dhawaaqay hadiyada nooceeda hore loogu bixin munaasabad noocani ah Cabdiqani Maxamuud Aadan Gamuuje waxaan dhiirigelinayaa cid kasta oo qoraal sameynaysa way haboon tahay inaynu ka gudubno marxaladda hadalka aynu gudubno marxaladda qoraalka dhigtada iyo daryeelka luqadeena iyo aqoonta kale qoraaga buuga aad iyo aad baan isu naqaanaa muddo 30 sanadood ka badan baan isu naqaanaa waan garan karayaa inuu kan iyo kuwa kaleba soo bandhigi karo maanta waxaan wadaa 2 faras iyo 2 geeyo iyo 4 qaado madaxweynuhu markii la yiri geela dhaqashadiisu aad u danaynaya warqaano caana badan loo raadiyo baa loo soo diyaar dirka maaliyadda oo muddo isagana waxaan u wadaa faras iyo geeyo faraska iyo geeyada kalena qaybsada sanad walba miisaaniyad walba oo la ansixiyo oo baarlamaanka horgeyso $10,000 oo bixiyay ka qaranay berigii hore marka buugaag la sameeyo wala tartami jiro wala iibsadaayo ana kontan qaatay insha Allah taala kontan هو عيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون عالمي Universal Hargeysa